إلهي ما معطى إله كسوك كهني هل وحن كورنا يا وحفلة أنت سوق قوية وسوق كورنيل وحنا عبريين إن أرضنا قرية شمسي معلومات متبعدي وارجو كسوتها تعبي جامعة عمود هي مجال الدورة وهو وحدة شرعة أو سوماليلاند أو أن أبار كله وعندهم وصوتها فتقولين يا مجال هذا هم بيرين حملة كان حفلة كسوة كان رسول الله يقول هو ما بروح الله وأنا استندار وحاول رسول الله كاين هم هو حلو وضع مركعي ونهى الضغيري مدحوير محمد سيايو وحاولوا وشهرنا وتعرف بريا دولتي وحكمت وحدونا وحكمت كائن الإسلام فعلوا أنا وحنا ربنا مركع أنو فكرني حزبي مركع حكم كلوري عن واحد مركع هوسو جاي كل واحد أفرتمية صنعوا فكرك إياه هيردي أحمد سيايو وأنت دلوقتي waxaan isleeyahay inta badan kuma jeeray wixii aad doonayseen ma aha in ka badan iyo laabkeedan ku hamoonay wax badan uga hamoonay baa wali aan gaarin sababaha ugu gaar weyn waa isla yartaabanayna qorshaha lagu wax qabad ka ahaa waxay wax qabad ku gaari karaa oo dad wax qaban karaa in saddex qodob lahayd mid waa amaanka oo haddii aan amaan lahayn wax wada qabanaya midna waa aqoonta وهذه أنا أقولها وحوار مرة صغيرة تصدقنا وأدوية resources وعقد وما تقدر تفتح واليوم هاي صدق راسي ما شاء سنة كورونا يجودوا كبيتين وحاولوا وين هذا صدق راسي إلا هاي وأقنت أمن كوها هذا وأقنت وحين حوك صاري وضد بدن oo wax tari oo wax gashay saaya aqoonta inta ay muqabalna waxay ku qabanay waa aqoontii oo ay koob ka ahayd ragii ilaahay fikrada ku harweeyay ee naftooda u horay oo ku dayasho mudan ee jaamacadan oo aan jaamacad ahayn ee amuud afar fiskandariga ee siraaya kaga tagay 9 sano ka hor ee anigu kaga tagay 4 sano ka hor ragga waxay tay ee hawshan bilaabay waxa loo kuwin inta aan haysto oo boorkii maanta asaasay halkan waxa ka noqday wax yar oo miisaaniyada gudoomiye oo reer boorku jaamacad oo Allah u naxariisto kii ku xigay xaaji daayir oo Allah u naxariisto jaamacad kale bixiyay haddana intay noolaayeen taariikhdu miga shaqeeyay iyaga qaar badan oo la mid ah marka aqoontii ay u baahneen intii ay uga tabaceen ee Salmaan ka bilaabay koob ka yahay halkan ayaa waxay noqotay ciidanka qura iyo maciinka qura ugu helay inaan aqoon wax ka qabo oo aqoon wax loogu taraa oo hawsha laga qabtaa iyagana baalkeeda qodobka labaad wuxuu noqday amniga si ay wax u qabanaa amniga koowa waynu ogeyn ciidamadeeda maalintii kulmiye yimid maalintii Axmed Siraay dhaariyay ciidanka lagu kala sareeyay waxaan waa waxaan mileeshiya waxa koob noqotay in ciidanka la dhiso ciidanku wuxuu ka dhismaa waxa koob kala qabeeyay jadda jaamacadii aqoonta maxaa kooba PhD ilaa dowladda ku jira ciidanku doona taas oo kala wada waxay ahayd hawsha ugu adag ee madaxweyne waliba ka maqlay ee nin walba ku adkaan lahayd ee uu Siraay u bareeray inuu sameeyo ciidan oo ayno oo garaadyo kala dambeyn leh oo midkiis kala gudub markii amaankii suuday ciidanka ayay ugu wareegay inay doonaan wax qas inaga qaaleeyay dadku ay yiraahdo وين كان يكون مشروع قرى إلى الفيلم ده ترى عارف عليه وقايش عليه إلى المال قليله وما نشوفه كيلو الرئيس واحد من الشعبين إلى درجة جيسة تقارك توصله وأنا برسول الله نصيدره إنه ولا عقوي ترى هو اللي وافق وشد يسرقه وين وعد درجة البورة وما بس اللي أنا ماتها إلى درجة شاب كاسر الضوء مشروع عيسى بالكامل الخاطئ إنه في الكلام رسول الله فسوى حباء أوجد أيون وهمي كل بعض ما رسول الله وحنا نقول بدر الله إذا إذا كنت بكين الشيال بقولتها
صاحب الشباب بارك هول مضمع كذا عليه دم كذا ما يعرف صار كبري كذا يعني شو رسوا كو قاري أمينات مركو حريزة كان كذيو ترى محاك وصل قبوري وين بيروين إستمرنا مرنبا فرصة ما كذا أي وصلوا لبضوا محايو بهذا محاد الماي كذا ما يصير شيء كمان تيسا ضحام واحد وطيبات تعال باينه وضدي هنا مكبرني دبي وين وين مانتا سكاش إلى نهار كذا أفر بقولهم اليوم بيسوي تري وأنا شو الناس هاي ودولة تعشري على هاي أو واحد يسوي حدوار على هاي ودول يجوا ورا كمان واحد مريء ودد الدولة دي كوش قايمة وأين مرينو دولياش حكومة يقولياش برلمانك إياش يقولون ما أنا أريد أعمل متاجري إسمه أو كحون فرس محمد اللي بدي هون اللي قاعد ما حيكون هون اللي بخشينه ما حيكون قابلنا وأقول ده أقول إنه بعمل أبغى تقول أنا جامعة كبحر وأدرس كقولة الدكتور وجامعة أجرته نقول وياك واحد روا أنت دلوقتي تبغى يسوي الدوية يسوي واحد مثلنا ودوي هذا يسمع لي إنجيل بارو هاي إنجيل بارو غانينا فرا أو وحورية أروح هاي محمد تيجا عافمات بارو بهاي مخاطر بارو بهاي يقوليسا سين لا تلقى بحر مخاطر بارو بهاي إيه دريت محاين هايسا ومباهي نختار إلى مثال معاشر أو في المسجد نفتي زي فوتا سكوار تجارو صغيرة وحاجة سارك الله وضل أقوله إياه جامعات معلمين تمستوى صور كويسة وضرنا الله وحنون وسعوا وحوا معي ويسأل الأنت وكذا القرنات محل ما بقاش يبدأ وسعوا لعن وين وهيدا لعن طول بيت كذا وري واحد وجهته صدق سنكون شريعة لا تسنكون لما تدي دلك كذا علي يو قرادي يضيعاتي صوب حي أيها وري وحامل يهيكون يقبل متعلمين ما تابع كبحية وجمعية كبحية وحكرها إلى النقطة عيدة جدا تدوين لها قوليس كسر لها قولة كسر لها توالك كبورين تدرى عرقابو سنة اخترنا يعني تقول وجه عليها إنتو هالكاد دو كنا مولي الله قد دورك على مستقبلك وهي وحبوط لي وما تخترنا عرقابو تقول كل صورة ما يرون إذا ما تخترنا يعني تقول عرقابي الله سبحانه وتعالى صورة ما يرون وهي وحي هريا ضل أو مرة قوتولا أو احترامية أو كإكرام بدن مركوب الرجول مركب متعلمين وحى كربا إلى النقطة قوة ضدك استحق لنا كل لا يفوق مرة متعلم جامعة كبحي ومركب أرجيسته حتى الله بعد عشان شغل ويا ما حد يسكت يا مرة ما تقول هذا صاع على طول ويا هذا وحمل الموضوع يا أخي سعيد بارو وحول كسوة كاس متعلم معها وإنه الدير كاتشبيا سوش المركب نشري هل كلام كتير سلام بارو مع سلامين نشيد عليه حمر بارو تغني وحنا قاعدين إلهي بقى كمان ناس وقرة ونقرأ كيسة مركب مقرعية ناس عارض يبور ما يسوى كيسة كرواية هذا شرعية تهين ويا بمايو نكمل بيت سجوجا بيت سافشة بيت جاي هذا كل وقت خطوكيا ساري كلام واحد روبيس وايتا لكن واحد ترد كافي جامعة كافي عارف كافي تاريخ كافي حداد بور من الناس من القرى وحبوت ترويو وردة جامعة كذا ماتي قدر كمال قشير واحد من الناس دايمك ليبي ويقول إلى قناة تلفزيون واحد كل يوم يسمونه قرشيسان مالقري كله ونرجع إنه شركته هو بترول كاه وجعلها يسمى كم كتار قمانين إلي أنا شيء كذا بس والله لما واحد صاحب بانيا dadka aqoonta marka hore daafici lahaa dadka aamir lahaayeen sawirka u horeeya nagaalka waxa weeye meesha markeeraysa haystaa oo reer walbeentiisa qooto halkeena wax lagu sheego mise waa qara wax doonay wax laga heli karo waxa kamid ah mashaariicda u baahnay maalgashooda inay xoojino oo la wada yeesho sii moodi macdanta ku jirta ma aha inay sii oodaato in yara ilaagato waa inuu mid international helaa oo boor oo shaqaalada ku filaada kuwa kale oo gudbaa markay usaas u dhaxgaleen dadka aynu isku xirno ayna wadooyin isku xirin aynu dadka wada yeelano ayuun baynu qabsan karnaa oo maalgashiga shaqaalaad ka leeyahay kow maxaa kaa taariikh helo aqoon oo waatee cadaalad baa leeyahay
cadaaladda ayaanu ka sugaynaa waa kulliyadda sharci halkan aqoon-yahanadu way raa ka soo baxay kuwa sharciga marka hargeysa ka barteen waxaan uga baahanahay ninka looyarka ahina markuu wax daafacayo inuu daraahay u daafaco ee nin warka inuu dambirayahay aan u daaficin jadkuna isaga iyo ilaahiisii aqoontada ugu shaqeeyo dalkana uu dhex ugu shaqeeyo oo aan berita ku arko looyar iyo xaakim ka baxay boorama oo laascaanood iyo baran iyo ceergaabo fadhiya iyo ku lamid oo intuu ka baxay boorama iyo sayrac fadhiya markaas baynu qaranaa oo aynu maalgashi iyo horumar gaari karna waxaan kusoo ururinaya maanta dadku wuxuu martu yahay waa aqoon hadday caafimaad tahay hadday cadaalad tahay hadday tahay maamulka dowladda qodobka ugu dambeeya aynu u baahannahay intaas oo dhan isku xidhi kara waxa weeye waa talada waa hogaaminta halkan waxaa ka furan malaygu jaamacadda political science waana ta ugu ardaya waayo dhammaanteed siyaasadda cudurka ka qabna siyaasadda waxaynu u qabnaa beenaane tuug nin wax dhaca nin aan maragtay marka waa ninkaadina waa siyaas waa lacaaya siyaasaddu dee taa maaha haddana waxaynu u baahannahay dadka yaa hogaamiya waa siyaas madaxweyne waayo waa siyaasi muxuu ka soo baxaa xisbi siyaasi wasiirku waa maxay waa hogaamiyaha dalka muxuu ka soo baxaa xisbiga siyaasiga marka kelmadda siyaasiga carabida ka tago waa tala qabeenkii waa geedkii talada waa halkii dalka laga hogaaminayay intaas aynu ehlooda wanaagsan waxaynu u baahannahay inaynu helo taliyayaal wanaagsan oo ilaahay yaqaana oo macallimo soo tabartay ama siyaasiyiin badhaho oo dalku waxaa u baahaya ku hogaamiya kaana wuxuu heli karaynaa qura markuu nin wax bartay oo tiif iyo ti aakhiradi bartay u yahay waxaan kusoo ururinayaa 3 qof oo halkan fadhiya oo anigu nolosha tababareeyaha oo kordhido ayaan doonaya loo mahdo ka koowaad waa cabdilaahi shaqaan jawhar waxaa kaga dalayaa ka bartaa isaga intaana qaanin oo dee ilaa maanta ardayga habanka ahaaya samafalka iyo mutadaawaca iyo ummadda u shaqayntooda wuxuu ka mid yahay qof kulan oo ee xil baarlamaan iska risaangeliya diiday oo uu ku shaqaysan lahaa weliba albaabada ku garaaci lahaa carruurtiisa wuxuu dooro ka qaadi lahaa oo xildhibaankii u banneeya ninka dhacay weya iska dhigay ee yidhi aan ummadda u shaqeeya macallin baa noqonaya diinta iyo qur-aanka badan kolba intii danyarna waanu hadlaya aad iyo aad baan u baradaqaya ilaahay ka jahaysiiyo waana tusaale wanaagsan u dayka qofka labaad oo professor salaam macallin waa runtiisa macallin u ahaa laakiin haddana waanu wada tashan jiray isbay markaa dhalinyaro u ahaa arooskiisina maxiis waan ahayn waa la shaqeynaya dardaaran buu siiyey wuxuu yidhi halkan waxaa waxyaalaha dina uu idhaahdo intaan u xabasay diyaarad shabiroota ahaa diyaarad kooda tagaashay wuxuu nagu yidhi adarka macalimiinooda ardada waagay oo kaanuna waxaan ku dhaqo waxaad doonaysaa saa tabashir ku cadaada waa baashu wax kaleedo wanaagsane waxba adduunyaha deedeeyay macallin laguuri labadeedu gaadoo daro taga la fooday ninkii kale waa basaaraa diiday maxaad doonaysaa buuri sarkaal baa noqonaya waxaa ii muuqda in cali shire iyo cabdisamad iyo alawna xasan xuseen in markaa ulayaa u joogay oo intay 4 sano ka hor laga tegeen iyagoo xildhigaana soo dhawda magaalada laga qabsaday oo harooba geli kara weynay oo raax ilaasha geeyay ayaa markaa ii muuqda 30 sano ka bacda ku socda waxaan ku idhi uu yahay keen macali maasha allah labad garoonida kolkaasuu soo kula tegay haddaad maantii macaan noqon lahayd aqoontaada iyo dhalinyaro iyo weji furan iyo maalmo wax soo wada dhextoodahay deetana maad gabowdeen noloshooda maalmo way ku cusbaan lahayd oo cilmi sidaad cusbahaysa adigu dagaal iyo jabhad iyo ciidan iyo buur baad gashay maxaad gacaysaa maanta sida basha calraya maaha marka isagana waxaa le waa tusaale wanaagsan waana taagday sidaalka ayadoo marqad furayo ninka saddexaad waa tiraayo 30 sano hawlo badan oo halka noocyo badan leh oo hogaamin leh oo buuq badan ayaan la joogay oo ka soo tabartay weliba aan idiin sheegay maan ahayn arday wanaagsan oo ay la joogay mid dhib badan baan ahaa khud badan isagana 3 waxbaa ka batay siraayo wuxuu looga mari leeyahay ilaa maanta wasiir ka soo aaday ilaa afweyne maanta inuu ahaa nin danta guud mooye kursiga uu fadhiyo darweeyaa kaga shaqaysan markhaatiga soo lalaabaaotay anna markhaati aan u kacaya kolle waan ku dayayaa inaan sii noqdo mana wada noqon maaye 2 siraayo waxaa ka bartay in halka gabadha wadaedo iyo duruufahaada boqolaal jeer oo halgala kala jaad ku jirtay oo aamura adagna soo mareen oo niyad jab badan u dhacay mar walba wuxuu oran jiray
taynu doonaynu gaari doonaa ka fog ee hakada jabay tusaale maalintaas ilaahay ka quustay ee sidii dib habmeen u jiro hadu salaamay oo ha u dhawaanay waxay maalintii kulmiyo layidhi baladkaada ka kala taga meesha ee ka noqo ee weli waana baray intuu odayaashiisa taagay maanta waxaan si dib ha u salaam ninka siraanaya inuu joogo ragii ka tuday baan ahay habeennimadii buu yeeray wuxuu maxaa ku doonaynaa soomaalida oo deetana maxay ku dhismaysaa dulqaad babaashaan u su-aal gannaa caynkaas war maanta haddaad su-aal gantay maxaa doonaysa malfaanaad wax doonaysa masaadaad wax doonaysa haddaynu noolaano way wanaagsanaan doontaa haddii kalena cid baad noqon doontee ummaddaasi maanta waxay wax noqona sumaan barwaana baday mana diidi kartid orodka ilaa inka baan caday intaad fiisa dootay shan bilood kabcaa soo caday goyamkaas kusoo noqdaa guri haddana warankan waa kugaa jooga marka in sabirka iyada furida taalo oo yeelana waanu kuximaynaa midna waan isweydiinaya inaan kaga tagaya kahay waa madaxweynihii afrikaan ugu horreeyay idhaahdo anigu waa nasanayaa qoranta qoyadii wuxuu kaalay meel soo socda ninka afrikaanka waxaan ku naqaanaa waa wada Robert Mugabe 90 jir iyo laba weliba imika doonaya loogu celiyo malaa waan gaarsiin karayaa warigii mid basoo dhawaaq karaya afrika oo dhanba soomaalina waxaa halkaa dhigay waa kursi jacayl axmed wuxuu yidhi anugu waan taageeranayaa in gurro waa soo jiray balkaalo shaqadiya ilaahay idinkii waxaanu jirayaana inaan taa kaga daydo kollay dee casiimadiisii aanu isaga ma yihiin inaynu tubtaa raacno waan isku dayay waxaan kusoo dhowgeynayaa waxaynu saddexdaa ninba ugu abaal gudi karnaa innagoo oo raacna waddadii iyo himiladii ay dalkan iyo qarankan u qabanayeen inagoo aragtidoodii yeelana inagoo oo adkaysigoodii yeelana oo danta gaarka danta qaranka u danta wasalaamu calaykum